waxaa tagtay dhowaan Soomaaliya markii kuugu horeysay aad tagtay Soomaaliya ahayd wixii aad ka filaysay iyo wixii aad soo aragtay bal nooga sheekay. I really enjoy it, but I have run ahaantii waan u riyaaqay hase yeeshee waa inaan qiraa in xilligan la jooga aan Muqdisho ku oodanahay xarun ku dhex taala gegida dayuuradaha 4 jeer ayaan Muqdisho tagay tan iyo markii aan aaday bariga Afrika runtiina wax badan ayaan qabanay dadku halkaas ayay noogu imanayeen oo ay nagula kulmayeen waxa iyaguna jira diblomaasiyiin kale iyo AMISOM oo meesha degan hawlo badan ayaan halkaasi ka qaban karnaa hase yeeshee waxaan sugaynaa oo aan rajaynaynaa inay mar dhow dhacdo maalintaan awoodi doono inaan ka baxno xerada gegida si aan u aadno oo aan dadka ugula kulanno gudaha magaalada marka sawir fiican ayaan ka qaadan karaa sida ay Muqdisho u eg tahay. hadda waxaa ka soo noqotay safar aad ku tagtay Seattle, Washington iyo Minnesota oo aad dadka Soomaalida ah ee Soomaali Mareykanka halkaasii jooga aad kula kulantay maxay ahayd ujeedka kulankaas aad la yeelato Soomaalida maxayse Soomaalida kuu sheegeen? No, thanks. It was a great week. I spent 2 days in Seattle, 2 days in Minneapolis, St. Paul. mahadsanid waxa uu ahaa toddobaad weyn 2 maalmood waxaan joognay Seattle 2 maalinna magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul labada magaalaba waxaan kula soo kulmay boqolaal Soomaali qurba jooga waxay xamaasad u hayeen inay la kulmaan danjiro Mareykana oo loo xil saaray Soomaaliya oo haddana iyaga u yimid si uu la hadlo runtii aniguna waan doonayay inaan sidaas sameeyo sababtoo ah waxay qayb ka tahay siyaasadda Mareykanka ee dibadda sidoo kale qurba joogta aad bay muhiim uga ahayd arrinta dhulkoodii hooyo ee Soomaaliya lacag badan ayay u diraan dalka qaar badan oo ka mid ah ayaa dalka dib ugu laabtay si ay kartidooda iyo khibradooda ugu biiriyaan dib u dhiska dalka marka waxaan doonayay inaan aragtiyo isdhaafsanno oo aan ogaado sida ay u arkaan waxa dawladda Mareykanku ay ka qaban karto halkaasi waxaan yeelanay doodo badan oo wanaagsan waxaan u malaynayaa in wada sheekaysigaasi aan kala soo baxay inaan si adag uga fikiro arrimaha qaar gaar ahaan sida ay dawladaha Mareykanka iyo Soomaaliya wax uga qaban karaan dhibaatada weyn ee dhalinyarada Soomaaliya haysata 70% dadka Soomaaliyeed waa dhalinyaro ay da'doodu ka yar tahay 30 sano intooda badani waa shaqo la'aan qaar yar ayaa haysta shahaadada dugsiga sare marka sidee bay u noqon karaan qaar wax soo saar leh oo bulshadooda u faa'iideyn kara sidoo kale waxaan ka fikiray xaaladda dhalinyarada ku nool Mareykanka oo runtii qaar ka mid ah ay horumar wanaagsan sameeyeen waxaan Minneapolis iyo St. Paul kula kulmay kuwa ka tirsan hay'adaha amniga oo ay ka mid ahaayeen 3 ruux oo Soomaalida Mareykanka oo ka tirsan ciidamada booliiska waxay ii sheegeen in bulshada Soomaalida iyo ciidamada ammaanka ay hadda dhexdooda kalsooni taalo balse weli ay wax badan ka dhiman yihiin guud ahaanna aad bay u wacnaan lahayd in dhalinyarada qurba joogta Soomaalidu ay dalkoodii dib ugu laabtaan si ay kaalin uga ciyaaraan dib u dhiska dalka Soomaaliya. The situation now, there's much more trust now, they think, between the community and the law enforcement, but there's a ways to go. hadal aad ka jeedisay Minnesota haddii aan dib ugu noqonno waxaad kaga hadashay weerarkii gaalkacyo ka dhacay dawladda Soomaaliya golaheeda wasiirada kulan ay yeesheen waxay dawladda Mareykanka kaga dalbadeen inay jawaab ka bixiso weerarkaasi sidoo kalena Galmudug waxay sheegtay in weerarkaasi ay geysteen ciidamada Mareykanka lagu bartilmaameedsaday ciidamo ay leeyihiin Galmudug sidee u aragtaa arrintaas? Well, let me say that the United States is committed, and we have been for a long time, to helping Somalia achieve peace and prosperity, and particularly the defeat of terrorism. We conducted a strike in self-defense, defending U.S. forces as well as Somali partner force. aan idhaahdo in Mareykanka ay ka go'an tahay wax badan ayaanan Soomaaliya ka caawinanay sidii ay u heli lahayd nabad iyo barwaaqo gaar ahaan sidii looga guulaysan lahaa argagixisada waxaan qaadnay weerar isdifaacidaha horaantii toddobaadkan waxaana uu qayb ka ahaa dagaalka dawladda Soomaaliya ay kula jirto kooxda Al-Shabaab wasaaradda gaashaandhigga ayaa faahfaahinta si wanaagsan u baadhaysa hase yeeshee si dhab ah ayaan u qaadanaynaa arrimaha la sheegayo ee ah in la dilay dadaan dagaal ku jirin waaxda gaashaandhigga ayaa baadhitaan samaysay iyadaana go'aamisay in weerarkaasi aan lagu dilin dad rayid ah amaba aanan dagaalka ku jirin waxaan si dhow isula shaqaynaynaa maamulada Galmudug iyo Puntland iyo dawladda federaalka si aan wax badan uga ogaano wixii dhacay sida aan wax badan uga wada shaqayn karno mustaqbalka hase yeeshee waxaan ognahay in Al-Shabaab ay ka howlgasho xadka u dhaxeeya Puntland iyo Galmudug waxay isku dayayaan inay kaalin ka ciyaaraan sidii ay tafaraaruq u kala dhex dhigi lahaayeen qabiilada gobolka dega hase yeeshee uma malaynayo in dadka deegaanku ay warkaasi ka qaadanayaan Al-Shabaab and we don't think that the residents of the region and certainly the United States should get drawn into an al-Shabaab effort to stoke differences.
madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo goor sii horeysay VOA-da wareysatay waxa uu sheegay in Puntland ay shirqoolkaasi samaysay oo ay ciidamada Mareykanka ugu soo farmuqeen inay iyagu yihiin ciidamo ka tirsan al-shabaab ma isleedahay arrintaasi waxay keeni kartaa xiisad ka dhex qaraxda galmudug iyo Puntland? Well, it shouldn't. I mean, the United States, is responsible for... taasi waa inaysan dhicin. Maraykanka isagaa mas-uul ka ah falkiisa. Cidna ma eedaynayno. Annaga ayaana labada maamul si gooni ah arrintan ugala xaajoon doonaa. Hase yeeshee tani ma aha mid isku diraysa gobollada iyo qabiilada halkaasi dega. waxaa jirta in dib u dhac uu ku yimid xanaankii doorashada Soomaaliya markii labaad dhismaha labada aqal ee baarlamaanka weli ma dhamaystirmin taasina waxay dib u dhac ku keeni kartaa xilligii doorashada madaxtinimada meelaha qaar weli la iskuma raacin qaabkii loo sameyn lahaa aqalka sare xubnaha loo soo gudbin lahaa arrimahaasi dawladda Mareykanka sidee u aragtaa? I think a delay of this nature is not necessarily a bad thing because it seems to be based on a sort of a well-documented, transparent need to get the technical... waxaan u malaynayaa in dib u dhacani una ahayn arrin xun. waxay iigula muuqataa mid ku salaysan sidii loo heli lahaa dokumentiyo cad, baahida loo qabo hufnaan iyo in habka farsamada meel fiican lagu hubsado. waxaan u malaynayaa inaad aad uga walaaci lahayd haddii dib u dhacani uu ahaan lahaa mid uu hal qof amaba koox gaar ah iyo danad siyaasadeed ka lahayd. hase yeeshee waxaan u malaynayaa in hadda siday wax u socdaani ay meel wanaagsan oo gebageba ah marayso. waxaan raje ka qabnaa in wakhtigu uu oggolaan doono in nidaamka doorashadu uu dhaqaaqo isla markaasna ergooyinkii loo baahnaa la soo dooran doono. mudane Safiir maxaad ku tilmaami lahayd xaaladda ammaanka ee Soomaaliya xilligan? Well, I think in general it's still precarious. Al-Shabaab still is a threat to the Somali people. al-shabaab weli waxay khatar ku tahay dadka Soomaaliyeed. waxay ka howlgeli kartaa meelo badan inkastoo aysan maamulin deegaanadii iyo magaalooyinkii ay hore gacanta ugu hayn jirtay. Soomaaliya nasiib bay leedahay. 5 waddan ee ciidamadoodu ay AMISOM ku jiraan ayaa kaalin ka geysta ilaalinta amniga oo ay ku jirto xilliga doorashada. waxaa jira waxoogaa horumara sida ay ii sheegeen qaar ka mid a saraakiil dhinaca ammaanka oo aan dhowaan la kulmay. dhowrkii sano ee la soo dhaafay awoodda al-shabaab way daciiftay gaar ahaan magaalada Muqdisho. taasina waxaan u malaynayaa inay tahay arrin wanaagsan. dabcanna waxa kale ee loo baahan yahay ayaa ah in runtii la dhiso ciidanka qaranka ee Soomaaliya iyo weliba xoogagga booliiska si ay u bixiyaan baahida dhinaca amniga ah ee uu qabo shacabka Soomaaliyeed. Of course, needs to happen is that Somalia itself needs to really build up its army and police force so that they can provide the security that the Somali people really need. ma ku muuqataa inay iman karto xaalad loogu baahdo in Mareykanku ay ciidamo ugu diraan Soomaaliya? We don't have a plan now to send large numbers of troops to Somalia. hadda qorshaha inooguma jirto inaan ciidan tiro badan u dirno Soomaaliya. annaga iyo Soomaaliya waxa naga dhaxeeya wada shaqayn military. haddii ay dawladda Soomaaliyana weydiiso inaan ciidamo u dirno markaa waa arrin aan ka fiirsan doono. hase yeeshee codsigaasi nooma iman mana aha waxaan hadda filayno. su-aasha kale aan rabo Safiir inaan ku weydiiyo waxay tahay waxaad xustay in dhismaha ciidan awood leh oo Soomaaliyeed ay muhiim tahay. maxay tahay doorka dawladda Mareykanka ay ka geysanayso dhismaha ciidan awood leh oo Soomaaliya loo dhiso? The U.S. is really, as I said, committed to helping Somalia achieve security, including sustainable security that Somalia can pay for, it's capable, and it can operate throughout the country. Mareykanka runtii waxaa ka go'an inuu Soomaaliya ka caawiyo dhanka ammaanka si ay ugu guulaysato amniga una hesho nabad waarta oo ka dhacda guud ahaan dalka. Soomaaliya waxaan ka caawinay samaynta cutubka danab oo qayb ka ah dhismaha ciidanka qalabka sida ee qaranka. kaas waan aaminsanahay inuu yahay ka ugu waxtarka badan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya. waxaan ku faraxsanahay inaan anagu kafaalo qaadnay oo aanu ka taageernay dhinaca tababarka. dhawaanahan qayb ka mid ah mas'uuliyadda ciidamadaasi waxa qaatay dawladda Soomaaliya. taasoo ah mushaharkooda runtiina waa wax aad u wanaagsan. waxa kale oo aan aad ugu faraxsanahay in arrimaha ammaanka ee Soomaaliya aan si wada jir ah isaga kaashanayno qaramada midoobay, midowga Yurub, Imaaraadka Carabta, Turkiga iyo dalka Ingiriiska si aan isugu xidhno dadaaladeenna ku aadan caawinta dawladda Soomaaliya ee dhinaca amniga.
to coordinate our efforts along with the Somali government and with the partners in AMISOM. sanadihii dhawaa Soomaaliya waxay tababarayeen ciidamada ammaanka sidoo kalena waxay la wadaagayeen xogaha sirdoonka dawladda Imaaraadka Carabta iyana door ay ku lahayd iyo midowga Yurub walina waxa la sheegayaa inaanay dhisnayn ciidan awood u leh inay AMISOM marka ay baxayso Soomaaliya ay kala wareegaan sugidda ammaanka Soomaaliya maxay tahay caqabadaha ugu waaweyn oo hortaagan in ciidan awood leh loo dhiso Soomaaliya? Well, you know, I don't know so much in the past what the obstacles were. I think that Somalia is dealing with so many challenges at one time that while the Somali National Army is wax badan kama ogi wixii hore iyo caqabadihii jiray hase yeeshee waxaan rumaysanahay in ciidamada Soomaaliya ay ka xoog badan yihiin sida ay ahaayeen 5 sano ka hor inkastoo ayna ahayn sidii uu wadanku rabay mana aha kuwa aad u badan oo xilka hadda kala wareegi karaya AMISOM waxaan u maleynayaa inay wax tareen doodihii aan arrintan ka yeelanay annaga iyo dalalkan arrimaha Soomaaliya iskala shaqeyno dawladda federaalka iyo waliba AMISOM kuwaas oo ku qotomay samaynta ciidamo isku dhafa oo ka kala socda qabiilada marka rajadu aad bay u fiican tahay dhowrka sano ee soo socdana ciidamada qaranka ee Soomaaliya waxay noqon doonaan kuwa horumarsan oo xoog leh the SNA can really develop into a much more capable and sizable force. xilligan waxaa la sheegaa in awoodda al-shabaab la wiiqay meelaha qaarna wali waa ay ku xoogan yihiin intee bay la egtahay isleedahay khatarta ka iman karta al-shabaab xilligan? Well, I think it remains pretty serious. I mean, as long as there is a threat from Shabab, as long as they're controlling some towns and territories, they're controlling roads, they're threatening ports, airports, and they're perpetrating attacks in cities and harming civilians. waxaan u maleynayaa inay yihiin kuwa khatar leh ilaa iyo inta ay jirto khatar ka imanaysa al-shabaab ilaa iyo inta ay maamulayaan magaalooyin dhul wadooyin dekedo iyo garoomo ilaa iyo inta ay weerarayaan magaalooyin oo ay dilayaan dad rayida khatar baa jirta mar dhaweyd waxaan ka hadalnay in ciidamada qaranka ee Soomaaliya ay yihiin xalka hase yeeshee waa uun qayb ka mid ah xalkaasi dhabtii Soomaaliya waxay u baahan tahay ciidamo booliis ah oo xoog leh waxaan ognahay amniga tuulooyinka iyo xaafadaha waxa sugi kara booliiska militarigu ma joogaan magaalooyinka ama wadooyinka ilaa ay ka jirto xaalad degdeg ah marka waxa kale oo ila tahay iyadoo la adeegsanayo dawlad wanaag iyo in la helo bulsho furfuran oo eegta waxa al-shabaab loo bandhigi karo in dhalinyarada qaarkood lagu soo jiido lacag dhammaan arrimahaasi oo isla socda waxaan filayaa in looga guulaysan karo ururka al-shabaab fewer youth that would be attracted by the money, and I think that Shabab can be defeated using a combination of approaches. mudana safir waxaa jirta su'aalo qof walba isweydiinayo Soomaaliya maadaama adiga hadda lagu magacaabay taasoo ah goorma ayuu Mareykanku furi doonaa safaaradiisa Soomaaliya ma u sheegi kartaa dadka Soomaaliyeed waqtiga aad ku tali jirtaan inaad safaaradda dib u furtaan? Well, I'd like to see that too. We do now, have a facility at the airport that we can use, and we go in periodically. Since I arrived in July, anigu xitaa waan jeclaan lahaa inaan taasi arko hadda waxaan ku shaqaynaynaa dhismo ku dhex yaala gegida dayuuradaha tan iyo markii bishii Julaay aan danjira ahaan shaqada u bilaabay waxaa safaaradda Muqdisho ka howlgala diblomaasiyiin markasta jooga iyo shaqaalaha dhinaca horumarka waxay ila tahay shacabka iyo dawladda Soomaaliya labaduba way dareemayaan joogitaankeenna labada sano ee soo socda waxaan rajaynaynaa inaan arrintaasi sii kordhino waxa kaloon aad u jeclaan lahaa inaan arko dhismaha safaaraddeennii ee Muqdisho hadda qorshaha inooguma jirta laakiin waanu jecelnahay inaanu samayno hase yeeshee xilligan la joogo wax waliba iskuma hagaagsana We do want to do that, but everything is not in place yet for that. ugu dambeyntii ma baratay eray Soomaali ah intii aad Soomaaliya joogtay? Nabadgelyo. Nabadgelyo. Thank you. Thank you. Thank you. Good.